السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن إذلاتي بداودة الكسر دوادة مركلة برامج ورقيسة أو إذا كجيم منايا تيفي جمرة حبنانا ري تيفي حرمتي سنة كلنا هاي مقالة كبورة ما دو برامج كأنه آلا بكسر قانون بحنا دي جدا بيو وحكا قرين جدهان ورقيسة دلك يجبده وحني لسه عسيد ونعني واحد شكر محمد علي كسر دوادة برامج كداودة يلا. هوتيل دهب ay ka samaysan yihiin dhammaan gidaaradiisa albaabadiisa daaqadiisa oo laga furay dalka Vietnam hoteelkan cajiibka daawadeen waxa wax ka qoray wargeyska Fore dalka Vietnam waxa laga furay hoteelkii adduunka ugu horeeyay ee darbiyada dhismihiisa banaanka iyo gudaha lagu dahaaray dahab waxa wajahadiisa hore lagu dahaaray dahab runa waxa kale oo dahabkan lagu dahaaray darbiyada qiimaha kala duwan ee hoteelka fareenka muraayadaha ku dhagan ee darbiyada handaraabka iyo waliba gacanta albaabka iyo waliba barkada dabaasha hoteelka Dalsi Golden Hanoi oo ka kooban 25 dabaq iyo waliba 400 oo qol waxa la filayaa in macaamiishiisa ugu badan heli doono markay dhawaan dalkaasi dad aad u tiro badan u yimaadaan ka qaybgalka iyo waliba daawashada horyaalka tartanka Formula 1 uu martigelin doono dalka Vietnam adduunyada kuma cusbo hoteelada ay qaybo yar oo dahab ah dhismahoodu ka mid yihiin sida handaraabka albaabka iyo waliba waxyaabo darbiyada lagu qurxiyo laakiin wajahadaha hore oo dhan dahab laga dhigo amaba darbiyada iyo qaybaha kala duwan ee dhismaha dahab lagu dahaaro ayaa ah arin dareenka dadka si aad xiisa ugu abuurtay gaar ahaan marka la eego dalka uu ku yaalo oo dhaqaalahaan hooseeya sidaasi awgeed lagama filaynin in dhismo noocan laga taagi doono dalkaasi Vietnam daawada maxad ka taqaanaa jeel bilaash oo ku yaala dalka Hindiya hadaba jeelka yaa lagu soo xiraa maxaase ku xukumayaa qofka lagu soo xiro waxa warbixinta wax ka qori wargeyska Fore dalka Hindiya magaalada lagu magacaabo Sindredi ayaa xabsiga dhexe ee ku yaala magaaladaasi oo uu dhisay gumeystii Ingiriiska waxa uu shaqeeyaa si la yaab leh jeelkan ayaa dadka u xiisooda in la xiro waxa ay codsadaan in la dhigo xabsigani maxbuus kasta oo jeelkani codsada in lagu xiro waxa laga qaadaa 24 saacadood lacag dhan $7 iyo bar waxa uu saxiixaa warqad ah in loola dhaqmo sidii qof maxbuus oo ku jira jeel xabsigan oo ay joogaan askar ilaala waxay ula dhaqmaan dadka la soo xiro sidii maxbuus caadi ah iyagoo u galiya direyska cad ee maxaabiista isla markaana ku shaqeeya oo alaabooyinka jeelka u baahda ku xamaala maxaabiista iyagoo gawaarida saara raashinka la siiyo waa kan maxaabiista caadiga ah kaasi oo lagu kariyo jeelka dhexdiisa waqtiga raashinka waxay saf u galaan madbaqa dadka la xiraa ayaa waxa ka mid ah dad hanti leh oo qoysaskoodu ay ka codsadaan inay jeelka ku soo booqdaan waana dad noloshu marin habaabisay oo wareer iyo waliba warwar joogto ah ku jira oo raaxo ka raadinaya nolosha xabsiga ee hooseysa 750 milyan oo xabo kaneeca oo gobol ku yaala dalka Mareykanka lagu sii daayay maxaa loogu sii daayay sababtooda maxay tahay warbixintan ayaan ku eegi doonaa waxa wax ka qoray warbixintan wargeyska Fore mas'uuliyiinta gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay sii deynta 750 milyan oo kaneeca oo jinsi ahaan isbedel loogu sameeyay si loo yareeyo xaddiga kaneecada ku nool gobolkaasi ujeedada laga leeyahay mashruucan ayaa ah in la dhimo tirada kaneecada cudurrada qaada sida fayrasyada noocyadiisa kala duwan fulinta mashruucan oo ku saleysnaa amar dhinaca dawladda ah ayaa muran dhaliyay muddo sanado ah waxaana caro weyn ka muujiyay dadka u dooda xuquuqda deegaanka oo ka digay inay ka imaan karaan cawaaqib xumo la sii saadaaliyay mid ka mid ah kooxahaasi ayaa cambaariyay mashruucan wuxuuna ku tilmaamay dhibaato bulshada loo horseedayo shakhsiyaadka u ololayo xuquuqda deegaanka ayaa walaac ka muujiyay in wax ka beddelka taranka kaneecada uu sababi karo waxyeello ku timaada hawada dabiiciga ah waxa kale oo ay ka digeen inay sameysmaan cayayaano adkaysi u leh dawooyinka iyo waliba sunta lagula dagaalamo cayayaanka laakiin shirkadda arintani ku shaqada leh ayaa sheegtay inaysan jirin wax khatar ah oo bini'aadanka ama deegaanka ka soo gaadhaysa hawshani waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo daraasado ay dawladdu ka warqabto
qorshaha sanadka 2021 kaneecooyinka loogu sii daynayo jasiiradda Florida Keys ayaa yimiday dhowr bilood kadib markii dowladda federaalka Mareykanka sharci ahaan u fasaxday in kaneecooyinkaasi wax laga bedelo. bishii May waaxda arrimaha deegaanka ee dalka Mareykanka ayaa u ogolaatay in shirkadda uu fadhigeedu yahay Britain ay ka howlgasho gudaha dalka Mareykanka si ay u soo saarto kaneecooyin tarankooda jinsiyadeed la dhalan rogay. kaneecooyinka howlgalkaasi lagu fuliyay ayaa lagu yaqaanaa inay xambaarsan yihiin cudurka dilaaga ah ee ku dhaca bini'aadanka ee loo yaqaano cagaarshowga. sida la ogaaday, kaneecooyinka dhadiga ah oo keliya ayaa qaniina bini'aadanka, sababtu waxa ay tahay waxa ay raadiyaan dhiig ay ukumahooda ku samaystaan. sidaa darteed, qorshaha ayaa ah in la sii daayo kaneecooyinka labka ah, kuwaasi oo tarankooda wax laga bedelay kadibna la falgeli doono kuwo kale oo dhadig ah balse duurka ku jira. hase yeeshee, kaneecooyinka labka ah ayaa lagu diray nafaqo dilaysa kaneecooyinka dhadiga ah marka ay gaadhaan da'da ay wax ku qaniini karaan. daawad maxaad ka taqaanaa shishaarkii ugu wanaagsanaa ee qarnigii tegay? haddaba shishaarkaasi ku musaaca muxuuse ku qaatay shishaarnimada? Yudmila Pavlichenko, mid ka mid ah dadkii ugu shiishka wanaagsanaa ee abi soo maray taariikhda caalamka, waxay gacanteeda ku dishay 309 askari oo Jarmal ah, kuwaasi oo la xaqiijiyay inay rasaasteeda u geeriyoodeen. wixii ka dambeeyay markii ay ciidamada naasiga ah farigelinta ku sameeyeen midowga Sofiyeed, kuwaasi oo la xaqiijiyay inay rasaasteeda u geeriyoodeen. wixii ka dambeeyay markii ay ciidamada naasiga ah farigelinta ku sameeyeen midowga Sofiyeed sanadkii 1949. tobanaan ka mid ah dadka ay dishay qudhoodu waxa ay ahaayeen shiishlayaal. badankood waxa ay madaxa ka toogatay iyagoo isku dayaya inay lafteeda dilaan. sidaa darteed, waxa ay gabadhan Ruushka u dhalatay loogu naanaysay marwadii dhimashada. ragga shiishka ku dheereeyay ee naasiga ahaa way awoodi waayeen inay dilaan, laakiin waxa ay ku dhaawacantay hoobiye la soo riday, inkasta oo ay dhaawacaasi ka kacday. markii dambe waa laga saaray furintii hore ee dagaalka waxaana lagu daray waaxdii abaabulka dagaalka ee dhinaca Sofiyeedka. iyadoo habkaasi u shaqaynaysa ayaa ay u safartay caalamka, waxayna xitaa la kulantay madaxweynihii Mareykanka ee Franklin Roosevelt. inkastoo bilad dahab lagu siiyay geesinimadii uu sameysay ciidamada Sofiyeedka, haddana goor dambe waxaa wax badan laga bedelay taariikhdeedii. waa arrin la yaab leh in haweeney shiishka xirfad sare ku lahayd aan si quman loogu sharcin loona dabaaldegin xasuusteeda ayaa ay tiri isla Safinka oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda sinaanta ragga iyo dumarka. maamulkii Sofiyeedka ayaa ay ku dhalishay inay xusi jireen raggii geesiyaasha ahaa oo keliya. magaalo ku taala dalka Norway oo ana lagu aasin qofka dhintay. maxaa sababay in aan lagu aasin qofka dhintay isla magaaladii ku dhintay? haddaba waxa wax ka qoray warbixintaasi xiisaha leh wargeyska Dawn. magaalada Longyearbyen ee ku taala dalka Norway oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2,000 oo qoys ayaa ah magaalo ka duwan magaalooyinka kale ee dalkaasi. waa jasiirad ku taala bartamaha dalka Norway oo qofkii ku xanuunsadaa uu ku qasban yahay inuu magaalada iskaga baxo, ama haddii uu ku dhinto aanan lagu aasi karin magaaladaasi. dadka nafqabadka ayaa loo diraa magaalooyinka kale ee dalka Norway si ay ugu soo geeriyoodaan, waxaana jira sharci ah haddii uu qofku dhinto inaanan la aasi karin. sharcigan ayaa magaaladaasi ka dhaqan galay in ka badan 80 sano ka hor. albaabada ayaa la iskugu dhuftay xabaalaha magaalada oo dhan. intaa wixii ka dambeeyayna aanan la ogolayn in hal qof lagu aaso magaalada. Longyearbyen oo ah magaalo aad u qabow, inteeda badanna baraf ah, ayaa mararka qaar waxaa dhacda in qabowgu uu gaaro in ka hooseysa 50 darajo, heerka ay biyuhu ku barafoobaan. sanadkii 1918 waxaa adduunka ka dilaacay hargab lagu magacaabi jiray Spanish flu, kaasi oo ku dhacay dad lagu qiyaasay 500 oo milyan oo qof. meelaha uu ka dilaacay xanuunkaasi waxaa ka mid ahayd magaalada Longyearbyen oo dad gaaraya 11 qof ay ugu dhinteen, dadkaasi oo lagu aasay isla magaaladaasi. ha yeeshee, qabowga magaalada oo aad u daran ayaa waxay keentay in dadkii u geeriyooday xanuunka lagu aasay magaalada aanu jirkoodu baabi'in, taas oo khubarada caafimaadku ay sheegeen inay jirto halis ah
in xanuunkaasi uu mar kale dadka ka qaadi karaan dadkii u dhintay oo lagu aasay magaaladaasi, kuwaasi oo jirkoodu aanu burburin welina sidiisii yahay. Dr. Christie oo ka tirsan jaamacadda Wisdom iyo koox uu hogaaminayo ayaa tagay magaaladaasi si ay wax u soo ogaadaan, waxayna tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunka oo lagu aasay magaalada Longyearbyen. Waxayna ogaadeen in weli xanuunka Spanish flu uu jirkiisu ku jiro. Christian Mayer oo ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda Norway ayaa horey u sharaxday sababta aanan dadka lagu aasi karin magaaladaasi. Sababta dhulkan mar waliba barafka ah aan dadna loogu aasi karin ayaa waxay tahay in qofku marka uu dhinto halkii la rabay in jirkiisu u baaba'o uu sidiisii noqonayo, sidoo kalena barafka uu bannaanka u soo saarayo meydka ayaa ay tidhi Dr. Christian Mayer. Sidoo kale Dr. Christian Mayer waxa ay sheegtay in barafkaasi uu sii noolayn karayo cudurka uu qofku u dhintay, taasi oo keeni karta inay dadka degan magaaladu ay qaadaan xanuunkaasi. Haddii aad u malaynayso inaad dhimanayso, waxaa la samayn dadaal walba oo lagugu geynayo meel ka baxsan magaaladaasi, ayay raacisay hadalkeedii. Arrintan ayay saraakiisha dowladda dalka Norway ee magaalada Longyearbyen ay sheegeen in haddii aanan la dhaqan gelin ay horseedi lahayd dhibaato caafimaad, waana sababta keentay inay la yimaadaan qorshahan horseeday in dadka laga mamnuuco in lagu aaso magaalada. aan soo qabta daawada warbixinta xigta ee barnaamijka. Tuug dhan oo daawada u dhacay guri isla markaana ka xaday go'. oo guri dhan buu dhacay, waxyaabo fara badan baa yaalay guriga. Haddaba keliyata waxa uu ka qaatay go'. maxaa sababay inuu ka qaato go'a? Odayga farshaxanka caanka ku noqday qarnigii 20aad ee lagu magacaabi jiray Pablo Ruiz Picasso, kuna dhashay dalka Spain sanadkii 1925 ayaa maalin gurigiisa ku soo noqday, waxaana uu arkay iyadoo alaabtiisii u taalay ay wada jajaban tahay, waxaana u muuqatay in gurigiisa tuugi soo dhacay. markii uu alaabtii wada eegay iyo weliba waxa ka maqan Master Picasso aad ayuu u carooday kadib markii uu ogaaday in tuugu waxa kaliya ay xadeen ay tahay gu'i sariirta u goglanaa. saaxiibkii oo la joogay ayaa weydiiyey waxa weyn ee ay tuugtu ka qaateen, waxa uuna u sheegay gu'i, laakiin saaxiibkii ayaa ku celiyey hadda maxaad ilaa xadkan ula carootay. waxa uuna ugu jawaabay waxaan ka cadhaysanahay in nacasyadaasi ay wax ka xadin farshaxankaygii, hadday tuugba yihiin maxay u baran waayeen qiimaha farshaxankayga, taasi ayaa wax tari lahayd. waxaana uu intaa ku daray tuuga jaahilka ah ayaa ah kan ugu nacasnimada badan, farshaxankiisa ayaa ahaa ku aad u qaaliya xilligaasi, qiimihiisuna aad u sarreeyay. Picasso waxa uu dhintay sanadkii 1973. caruurta noqonaya burcadka oo ku soo badanaya dalka Ingiriiska. waxa warbixintaasi wax ka qoray wargeyska Dawn. warbixin uu soo saaray guddiga caruurta ee dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in England ay ku nool yihiin ilaa iyo 27,000 oo caruur oo burcada. burcadkan oo da'doodu lagu sheegay inay u dhaxayso da'da 10 sano jir ilaa iyo 17 sano jir. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 313,000 oo caruur ah ay yaqaanaan xubnahaasi burcadka ah, halka 34,000 oo ka mid ah ay dhibaato kala kulmeen burcadda. Anne Longfield oo ka mid ah guddiga caruurta ayaa sheegay in burcadda ay adeegsadaan xeelado la fahmi karin si ay u tababaraan caruurta kale ayna daacad ugu noqdaan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa sheegtay inay ka go'an tahay sidii loo difaaci lahaa caruurta. gabadh la baxday magaca Sarah oo aan ahayn magaceeda rasmiga ah ayaa ku biirtay kooxda burcadda ah iyadoo 12 sano jir ah, waxaana ay sheegtay in xilligaasi ay tacaddi kala kulantay ehelkeeda oo ay la noolayd. waxay BBC-da u sheegtay inay isticmaasho maandooriyo ay ka mid yihiin kokainta. walaalkeed iyada ka yarna uu horay ugu biiray kooxaha burcadda ah. dalka Ingiriiska ayaa waxaa sanadba sanadka ka dambeeya ku sii badanaya caruurta ku biiray kooxaha burcadda ah. daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka wargeysyada oo aynu la socodsiinay anigoo Cabdi Maxamed Cali. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa guud ahaan asxaabta kala qayb qaadatay barnaamijka. dhammaantiin waxaan kaga tegaynaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.